way socdeen meegaal dhexe markay marayaan ayaa waxaa arkeen ay habeenkiina soo dhow yahay meel xer ay qur-aanku akhrisanayso. xerta waxaa la idhahdaa ardayda qur-aanka baranaysa iyo macalinkoodii iyo wixii oo dhan kii rabayda anigu halkan aan idinkaga hadhaya war mahayna keen magaaladii waa taa muuqatay may waxa la igula soo dardaarmaa awowgay igu yidhi meel qur-aan lagu akhrisanaya hadaad aragto ku leexo oo qur-aankaaga la akhriso. waayahay adigay ku jirtaa wuu iskaga tegay wuu iska fadhiyey isagoo qoladiibu iskala akhrista qur-aankiisii habeenkii oo dhan buu la soo jeeday wuxuu tegay in maalintii dambe wuu la joogay 3 cisho buu iska ag fadhiyey wuu iskaga tegay. maalintii dambe ayuu sheekhay macalinkii bas nin wanaagsan baatay qur-aankii oo dhan waad akhrisatay iska tag. markay waxoogaa xabaar sii socdeen ayaa wuxuu tegay magaaladu waxa weeyaan magaaladaasi boqor baa leh. magaaladaasi waxay leedahay ceelkaana waxaa iskale mas duula. maskaasi wuu soo degaa maalin walba mar ama dhowrkii cisho maalin. magaaladuna waxay ilaalisaa mar walba dadka yimaada ee martida ah ayaa la ilaaliyaa lasoo qabqabtaa kuwaas baa la siiyaa. haddii dad martii iman waayaan baryaha waxaa la waxa weeyaan reer kasta oo ka mid ihi waa inuu qof keeno maska loo xidho waayo haddii kale ceelkaa cidi kama cabayso. dadkii hore ee safarkii isaga kasoo baxsaday waxa weyn ayaamihiibaa maskii la sii siiyey uu maqnaaba isagu wuu iska badbaadiyey. meeshii buu yimid aroortii buu soo galay wuxuu soo maray maxay haydeenay inan qayliyeysa ceelkii bisil biyo ka cab inan baa geed ku xidhan way qayliyeysa maxaa kugu dhacay waxay tidhi ceelkan mas duulaa iskale maskii baa imanaya masku markuu yimaadana qof waa inuu qaataa markaa wax la ila sugayaa maskii. markaasi buu ku yidhi maskii waa lagula sugayaa haa markaa haddii xalay toole cidii magaalada iman lahayd qofkaasaa loo soo xidhi lahaa laakiin xalay cidina magaalada ma iman. marka adigu orodoo iska tag adigu imika aroor baad socota masiidu may waan ku caawinayaa. markaasay tir sidii caawinay masiir xarkii ka furfuray markaasay tir may waa la isoo celinayaa marka ma tagaayo masiir maska aniga dilaya ma dili kartid may waan dilayaayo ilaahay idankii waan dilaya. uu sugay seeftiisii la soo baxay maskii oo duulaya yimid masku wuxuu leeyahay 7 madax meeshii buu geeb ku dhacay markuu soo duulu ku dhacay meeshii wuu seexday wuu qaaday kiyada maskii buu tiriyay maxadiisi 1 2 3 4 5 6 7 kii dhexda ku jiray ee afraad ayuunbuu ka jaray madaxa 6dii madaxee kala soo kacay mar kale igu celi maya markuu naftu mar bay baxdaa madaxyadii kalunbaa wada dhacay wixii kalunbuu marba mid ku dhuftay dhaag way wada kawada kuray inantii guroniga maskii dilay ordo iska tagtay isna magaalada dhinaca kale ka galay. markaasi ayuunba inantii reerkoodii tagtay allaa magaaladii oo dhan baa qabatay maskii bay noo iman maskii baa magaalada oo dhan dadka layn doona ceelkii dib looga cabi maayo maxaa loo soo baxsaday mee waa la dilay yaa dilay nin baa dilay ma dhici karto ina marshaydi soo tusay dadkii oo dhan baa soo dhuuntay way arkeen. inantaa la soo xidhay aabaheed wuxuu ahaa boqorkaba magaalada haysta wuxuu yidhi hal soo daydayo ninkii magaalada dib laga soo dayday waxa la yidhi magaalada dadka jooga oo dhan uu soo wada baxa isagoo maqaxyar iska fadhiya baa lagu yidhi soo baxa boqorka dadka oo dhan u yeedhayay uu yimid inantii baa meel sare fuushay kaar arag baa la yidhi dadkii way garatay kaas waa والله ما هذا مسك دلها وسيدي دلي كرتة وحويان إلهي إذا كي وما قبصدي بس نكون ما قبصدي سيدا سنكون دلي بغرك بكل واي هلا حتى ما قصينا يا مقالنا نسكت الجنوب إلى تشوق نو ناكسن باطل نكيرا ولا تشوق